ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada xiisaha badan ee aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa kamid ah hab awood qaybsi oo ay soo jeedisay beesha degta koonfurta magaalada Dagaalka oo khilaaf cusub ka abuuray shirka Galmudug wararkii ugu dambeeyay dagaalka magaalada marka uu ku wajahan yahay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya wax garad madaxweyne farmaajo ugu tagay siideenta janan oo niyad xoogan kala kulmay saddex qodob oo muujinaya in wasiir Odowaa looga adkaan karayo madaxtinimada Galmudug Kenya oo shaacisay qorshaheeda xiga kadib markii dib loo dhigay kiiska dhanka badda ee dawladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo macluumaad ku saabsan maxaa ka jira in guddiga baarlamaanka sharciga doorashooyinka uu qorsheynayo muddo kororsi loo sameeyo dawladda qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ayaan wararka idinkugu soo gudbin doonaa intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorkaroonaya shabakada wararka maanta u diyaar garooba iminkana warkii oo faahfaahsan dood kulul oo xoog leh ayaa lagu waramayaa inuu hareereeyay shirka dib u heshiisiinta Galmudug ee ka socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug sida ay sheegeen xubno ka tirsan guddiga qabanqaabada shirka oo la hadlay shabakada wararka maanta beelaha Soomaaliyeed oo ay ku kulansan shirkaasi ayaa waxa lagu waramayaa inay soo bandhigayaan tabashooyin badan oo dhexdooda ah iyo sidoo kale muran ka taagan nidaamka awood qaybsiga Galmudug oo beelaha qaar tabasho ay ka muujinayaan beesha degta koonfurta magaalada Dagaalka ayaa markii labaad soo jeedisay in awood qaybsiga Galmudug laga dhigo labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud oo ka kooban yahay maamulkaasi tala soo jeedinta ay sameeyeen ayaa waxay ku sheegeen inay doonayaan in Galmudug awood qaybsigeeda laga dhigo labada gobol isla markaana ay ku xaqiran yihiin soo jeedinta beesha degta koonfurta magaalada Dagaalka ayaa keentay in doodo kulul ay ka bilaawdaan shirka maadaama gobolka Mudug uu gaar u yahay beeshaasi marka laga reebo beelo kooban oo la dega shirka ayaa lagu wadaa in isbuucan gudihiisa la soo gabagabeeyo isla markaana laga soo saaro war-saxaafadeed sida qorshaha uu yahay guddiga shirka ayaa doonaya in degdeg loo soo dhameeyo lagana soo saaro waramurtiyeed si loo dhameeyo howlaha kale ee horyaala maamulka iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanada Galmudug markana aan eegno saddex qodob iyo macluumaad ku saabsan qaabka looga guuleysan karo wasiir Odowaa loolanka doorashada madaxtinimada Galmudug ayaa si xooli ah ku bilowday iyadoo durba la sii calaamadeeyay labada musharax ee noqon karaya kuwa ugu cadcad ee doorashada Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor oo loo arko inuu garab u ka helayo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Odowaa oo ah gacanta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu dhex yaalaa hardanka ugu adag ee doorashada Galmudug dadka qaar ayaa durba waxay bilaabeen inay hoos u dhigaan rajada musharax Odowaa uu ka qabo inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha waxaana ay sabab uga dhigayaan saddex qodob kow farqiga beelaha iyo xildhibaanada federaalka Galmudug waxaa degan xildhibaanada marka loo qaybiyo 11 beelood marka la joogo Galmudug waxaa caadi ah in xildhibaanada federaalka ay saameyn xoogan ay ku leeyihiin soo xulista xildhibaanada Galmudug xafladii Cabdiraxmaan Odowaa uu kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa waxaa joogay xildhibaanada saddex kamid ah 11 kaasi beelood ee degan Galmudug halka musharax Qorqoorna ay soo xaadireen 11 kaasi xubnood beelahooda ku matala dawladda dhexe taasi waxay muujisay in Odowaa uusan haysan taageerada inta badan ee beelaha Galmudug xildhibaanada dawladda dhexe ku matala Galmudug ayaa inta badan waxay xuluf duub ay leeyihiin ama xusul duub ay ugu jiraan inay soo saaraan qof ay wataan 2020ka oo ay dib ugu soo laaban karaan baarlamaanka federaalka dadka faaqida arrimaha Galmudug ayaa waxay sheegayaan in musharax Odowaa uu gacanta ku hayo xildhibaanada sida aadka ah u dhaleelsan dawladda federaalka ee Soomaaliya arinta labaad khilaafka cararka reer Galmudug dadka reer Galmudug ayaa 4 sano waxaysan helin adeeg maamul waxaana sanadihii dambe ay daawanayeen khilaafka villa Soomaaliya iyo Galmudug waxay aaminsan yihiin in halkaasi wax badan oo horumar ah ay ku seegeen sidaas daraadeed waxa sida muuqata qorshaha uu yahay in xiise aysan u qabin khilaaf kale qodobkan wuxuu si weyn u saameyn karayaa musharax Cabdiraxmaan Xuseen Odowaa oo dhawaan si dadban u cilaamiyay in gabi ahaanba Galmudug hadii madaxweyne ka noqdo aysan noqon doonin goobta khilaafka laga aasaaso qodobka saddexaad ayaa wuxuu noqon karayaa dhaqaalaha iyo sidoo kale awoodda deegaanada kala duwan ee Galmudug musharaxiinta halkaasi ku tartamaya ayaana la ogeyn sida ay ku soo kala bixi karayaan maadaama doorashada halkaasi ka dhacaysa ay tahay mid indhaha lagu wada hayo markan odayaal waxgarad muddo 7 u jooga magaalada Muqdisho siideenta wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa shalay dib ugu laabtay gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Daro waxaana ay sheegeen in natiijo ay ka soo bixi weyday dadaalkii ay ku doonayeen in lagu sii daayo wasiir Janan odayaasha ayaa waxay xuseen in madaxweynaha Soomaaliya uu la dhaqmay si aysan jeclaysan isla markaana baalmarsan sharciga iyo dhaqanka sida ay hadalka u dhigeen odayaasha ayaa waxay xuseen in madaxweyne Farmaajo ka diiday ergeyntii ay wadeen waxaana ay xariga wasiir Janan ay ku tilmaameen mid xaq darro ah sidoo kale odayaasha ayaa waxay sheegeen in madaxweynuhu uu sheegay in aan wax dambi ah lagu haynin wasiirka balse xoog lagu haysto sida ay hadalka u dhigeen hadalka ka soo baxay odayaasha ayaa muujinaya xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya dhawaan ay sheegtay in wasiirka loo haysto dambiyo waaweyn lagana soo taagi doono
maxkamadda. sidoo kale Amnesty International ayaa waxay soo dhaweysay xariga wasiir Janan waxaana ay ku baaqday in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno. markana Kenya waxay shaacisay qorshaheeda xiga kadib markii dib loo dhigay kiiska dhanka badda. Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday qorshaheeda xiga ee kiiska dacwadda badda kadib markii maxkamadda caalamiga ICJ ay dib u dhigtay ilaa 4 November. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in Kenya ay ku dadaali doonto in goor maxkamadda ay Soomaaliya la gaartay heshiis ka baxsan maxkamaddaasi. Arrinta maahan wax cadaan iyo madow ah, xal kasta oo waara waa inuu noqdaa mid labada dhinac ay rajeynayaan wax wanaagsan oo uu ka soo bixi karayo. Waxaan doorbidaynaa heshiis laga wada xaajoodo ayay tiri Monica Juma. Hadalka Juma ayaa qayb ka mid ah loo fasirtay in Kenya ay u aragto go'aanka maxkamadda mid hal dhinaca oo Soomaaliya kaliya ay doonayso, sidaas daraadeedna ay gabi ahaanba ay doonayaan in miiska wada hadalka wax walba lagu dhameeyo. Toddobaadkii tagay ayaa maxkamadda ICJ waxay aqbashay codsiga dowladda Kenya ee ahaa in kiiska dib loo dhigo, hase yeeshee waxay diiday waqtiga Kenya ee doonaysa oo ah muddo 1 sano ah, waxaana ay ogolaatay 2 bilood oo kaliya. warar kale oo dhowr ayaa inoo soo socda, balse markan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay waxa kulan uu kula qaatay qaar ka mid ah haweenka koonfur galbeed, waxaana uu ku booriyay in codkooda ay kor u qaadaan oo ay qaataan doorka ay ku leeyihiin dowladnimada iyo horumarinta ummadda Soomaaliyeed. Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu bogaadin u jeediyay haweenkii ka qayb galay shirkaasi. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaana la hadlay haweenkii uu la kulmay. waxaan aaminsanahay fikir ahaan xukuumaddeeduna ay ku shaqaysaa in doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowladnimada iyo horumarkaba doorka ugu muhiimsan oo bulshada Soomaaliyeed ay soo aragtay 30 sano ugu dambeeyay. waxaan aaminsanahay idinka la'aantiin inaan dalku soo gaareen meesha aan joogno. waxaan aaminsanahay inaad dhibaatadii ugu badneed idinku aad dalka ka soo saarteen. waxaan aaminsanahay culayska ugu badan inuu idinku dhacay. waxaan aaminsanahay dulqaadka ugu badan inaad idinku bixisaan. adduunyada waxay isticmaalaan dadkooda oo dhan. dadkoodu waa rag iyo dumar. dunida meel walba oo la joogana dumarku ugu yaraan 50% ay ka yihiin. annagu haddii marka dhaqankeenna uu yahay inaan 50% oo rag ah aan isticmaalno, 50% bulshada kale oo haweenahna aan meel iska dhigno ama xuquuqdooda aan u diidno, su-aashu waxay tahay adduunyada sidee baan rabnaa inaan u tartanno. waddanka nagu dhegan oo Kenya ah ama Rwanda ah ama kan Yurub ah ama Maraykan ah oo 100% shacabkiisoo dhan isticmaala, iyo annagoo dunida 30 sano gadaal uga dhacnay oo haddana weli ku taagan dariiq ah 50% inaan isticmaalno dadkeenna oo ah awoodda ugu badan oo aan leenahay dal ahaan. su-aasha ay rabo ragga Soomaaliyeed inay isweydiiyaan oo anigu horeeyo waxay tahay sidee baan horumar ku gaaraynaa. waxaan soo jeedinayaa marka in la ballaariyo dooda ah gabdhaha Soomaaliyeed haddii ay yihiin 50% in awoodda ay 50% ku leeyihiin. in codkoodu uu yahay ugu yaraan 50%. in meel walba oo looga arrinsanayo danta iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed xuquuqdooda dhabta ah la siiyo. waxaa kaloo aaminsanahay qarnigan hadda lagu jiro adduunyada inay isbedeshay, aqoonta rag iyo dumar loo siman yahay, weliba gabdhuhu waxay si fiican yihiin aqoonta marka la fiiriyo cilmi baarista ugu dambeysay oo la sameeyey. waxaa kaloo aaminsanahay goob walba laga shaqeeyo in ay u wanaagsan tahay dhaqan ahaanta iyo suluubta iyo wax walba in xuquuqda bini'aadanka la daboolo oo qofka xaqiisa lagu tumo. waxaan rabaa markaa in aad aad uga sii shaqaysaan abaabulkii aad wadeen weligii. meel fiican aad joogtiin hadda, waa soo bilowdeen. baarlamaankaa ku jirtaan, xukuumaddaa ku jirtaan, baarlamaanada dowlad goboleedyada ku jirtaan, xukuumadaha dowlad goboleedyada ku jirtaan. codkiina waa la maqlaa. waxaa runtii laydinku yaqaanaa marka idinka iyo ragga la isbarbar dhigo
haweenka Soomaaliyeed waa dad adag dulqaad badan oo Soomaaliya dib ka soo saaray sidaas u maleyn maayo in ragga Soomaaliyeed laga sheego magac ahaan idinka ka fiican ragga marka inaad sii bilaashiin u baahan waxa kaloo la idinka rabaa raggana waa wiilashiinni iyo kuwa aasasku ahaydeen iyo walaalihiin iyo cid walba wax walba marka guriga qoysku ka asaasmaa dawladnimadana qoyskay ka bilaabataa ee carruurtay ka bilaabataa idinkaa la rabaa amniga inaad ka shaqaysaan idinkaa la rabaa inaad ciidankii dhiirigelisaan idinkaa xogta rasmiga og idinkaa la rabaa inaad xogta bixisaan idinkaa la rabaa waxa waddanka khaldan idinkaa u jeeda inaad sheegtaan haddii haweenka Soomaaliyeed iyaguna ay kala qaybsanaadaan sida raggu u kala qaybsan yihiin waxaa yaraanaya rajada dalku uu leeyahay maadaama marka tafaraaruqa ka dhex jira ragga Soomaaliyeed sidii burburka uu aad u badnaa idinkana lama rabo inaad siyaasadii lagu soo daalay dariiqeeda amartaan waxaan rajaynayaa marka idinkuna isku duubsataan isku duubnaataan isxajisataan dulqaadka aad muujiseen oo midnimo ay ku sii salaysan tahay inaad isku daydaan dalka in la samata bixiyo runtii hadda waxaa muuqata rajo weyn rajada waxaa tusaale ka ah markaan koonfur galbeedna mid sida naloo soo dhaweeyey waxaa tusaale ka ah wada shaqaynta madaxweynihiina iyo dowladdiina iyo dowladda federaalku ay leedahay waxaa tusaale ka ah rabitaanka shacabka Soomaaliyeed soo ballaaranaya waxaa tusaale ka ah goboladiina shabeellada hoose oo ciidamadiina qalabka sida ay ka shaqaynayaan sida loo xoreyn lahaa meelo badanna la xoreeyay oo cadawgii laga saaray waxaa tusaale ka ah shacabka reer Xudur sida ay isu abaabuleen oo iyagu amniga uga shaqeeyaan waxaa tusaale ka ah gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada oo baydhabo meel walba taagan oo ka shaqeeya dowladnimada waxaa tusaale ka ah idinka isu soo baxay oo u yimid wasiirka sida uga arrinsantaan mustaqbalkiina waana meel walba oo dalka ka mid ah oo aan tagno sidaasaa muuqata rajadaas muuqata marka waxaa la rabaa in laga dhabeeyo si looga dhabeeyana waxaan rabnaa haweenka Soomaaliyeed inay hormuud ka noqdaan waa idin mahad celinayaa kulligiin ilaahay idin barakeeyo wixii howl ah waxaan rajaynayaa inaad wasiiradda kala hadashaan wasiiradda iyo inaad si waafiya u wada shaqaysaan idinku haddii aadan wada shaqaynina ma siin kartaan adeegga gabdhaha halkan joogay u baahan yihiin waxaan idin leeyahay hambalyo markana waxaa dhawaan soo ifbaxday warar la isla dhex maraya oo ku saabsan in guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka uu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu wado qorshe ku saabsan muddo kordhin 2 ilaa 3 sano ah oo baarlamaanka Soomaaliya ay u sameynayaan dowladda hadda haysa xilka warkan ayaa si rasmi ah waxa uu beeniyay xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ka tirsan guddigan waxaana uu sheegay inaysan arrinta muddo kordhinta ah aysan ka mid ahayn ajandayaashooda iyo shaqada loo dirsaday isla markaana ay wadaan la tashiye ay la sameynayaan dhinacyada ay qusaysa arrintan iyada oo laga doodayo qaabka doorashada ay ku haboon loo qaadan karayo xubnaha guddigan waxa ay sheegeen in warkaasi gabi ahaanba uu yahay mid been abuur ah oo ay jeediyeen xubno baarlamaanka ka tirsan wararkii ugu dambeeyay caalamka Soomaaliyeed kala socotay shabakada wararka maanta waa nageynta